السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa arrin aan maqlay oo social mediaha today ka socotay maanta oo la wadwaday oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka hadlayeen oo youtuberadu ka hadlayeen ayaan rabaa bal inaan ana wax ka iraahdo maadaama aan horay uga soo hadlay yarka yar ee dhalinyarada ee la yiraahdo Sharma Boy ee fanaanka ah marka waxa weeye waxaan rabaa inaan talo ku darsado talo waaridnimo talo maxaan ku yiraahdaa ka hooyo Soomaaliyeed hooyadiisoo kala ah inaan ku darsado ayaan doonayaa taladaas waxay tahay waxa aan maqlay in loo yeeray Sharma Boy oo la yiri Nairobi imow waan kugu casunaye show baad nala dhigaysaa oo dabcan aan maqlay waxaa yiri ilka case qays yarkan kale isagana raab gareeya oo mar dhaweyd guursaday oo aroostay gabadha caanka ah ee comedy-ga ah la yiraahdo Naciima Joker marka runtii waan yaab xagee baan iri markaasaa la yiri Nairobi waxaan riyaa Nairobi wallahi wax la yaab la ila noqotay wax aan la yaabo ayaa ila noqotay unbelievable aan dhahay Nairobi meel kale mise Nairobi markaasaa la yiri Nairobi how possible baan iri Nairobi siduu u aadaa Sharma Boy maxaa iri ninka stupid ma ahan baan iri maxaa niga khaldan see Nairobi u aadaa Nairobi shalay ma ahayn miyaan iri ninkii looga soo hanjabayay maxaan ku iraahdaa YouTube-kiisa looga qaatay password-kiisa iyo wixiisii bahdilkii la okeyto loogu geystay tan kale Nairobi soo ma ahayn saaxiibkiis halkii baastoolada laga saaray dhafoorka soo ma ahayn waxaan iri soo Nairobi ma aha halkii uu ka soo cararay best friend-kiisii halkii uu ka soo cararay soo ma ah waxaan iri Nairobi soo ma aha meeshii qofka dumar ah ka soo carartay ee saaxiibkii uu qabo ya kaajal gabadhii meesha ka soo carartay soo ma xayaad kaajal oo dumar ah oo lagu xeerin waaye oo ammaan ku weyday iyadoo qof dumar ah iska daa isagoo nin raga inuu meesha aado soo halkaa maaha Nairobi soo maaha halkii wiilasha yaryar ee Soomaaliyeed inta dhagta dhiiga loo daro lagu shabaxtamay oo ninkan Axmed Rashiid uu leynayay oo ku leynayay magaalada dhexdeeda harka cad soo ma aha Nairobi waxaan iris Nairobi soo ma aha wiilkii yaraa ee dhalinyarada ahaa ee xaqa iyo runta ka hadlay ya meeshii sidii la okeyto loogu galay oo meel walba laga buusbuusay sidii loo garaacay dhiigga sidaa looga qubay soo ma ahan baan iri ma meel kaloo cusub baa Nairobi soo ma ahan baan iri meesha gabdhaha lagu afduubto oo maalin walba gabar baa maqan la leeyahay ama wiilal baaba maqan xataa la leeyahay wiilal reer Gaarisa aba ilaa ay hadeer maqan baa la raq iyo ruux meelay jiraan la aan la ogeyn Nairobi soo ma aha wiilkii Mareykanka ahaa meeshii lagu dilay ee ganacsadaha ahaa nin weyn oo Sharma Boy ka weyn oo ganacsada ah oo maxaan ku iraahdaa hanti leh
oo hantiilo ah oo baasaboor USA ah wata ninkii meesha lagu dilay soo ma ah meesha lagu dilay soo ma ah Nairobi marka how possible Sharma Boy u aadi karaa Nairobi oo waliba Nairobi soo ma aha meesha wiilkan markii la garaacay la buusbuusay ee indhaha iyo meel walba laga barariyay halkii lagu yiri hebel oo ma jeerteena baa kugu xiga oo reer hebel baa dadka yaga dhiibi jiray meesha lagu yiri soo ma ah Nairobi waxa weeye Sharma Boy waali iyo miyir qab midna ku tagi maayo waa aniga my opinion kayga weeye waa fikirkayga tan kale talo ayaa waxaan ku siinayaa Sharma Boy waxaan leeyahay Sharma Boy be careful nin yari intuu geed ka boodo buu tala ka boodaaye is ilaali iska jir yaan lagu carab laalaadin yaan lagu yeeranin waxaan maqlaayay waxa u yeeray ninkii ilka casaqays ee raab garan jiray iyo wiil kale xariir la dhahay hebel xariir I don't know sidaasaan maqlay iyadoo la leeyahay waxa weeye labadaas qof kuma bixin karaan ninkan Maxamed Rashiid ma la yiraahdo Miss Axmed Rashiid baa la dhahaa ma garanayo waxa weeye nin xad xiro ma aha nin ilaah ka baqaaya ma aha hadduu ilaahay ka baqaayo dhiigga islaamka ma uu daadiyeen nin xishoonaya ma ah oo hadduu xishoonayo wiilasha la dhiigga ah Soomaalida ah isaga oo maanta sheeganaya waddanka shisheeyaha ah ee Kenya inuu wax ka yahay oo askari ka yahay intuu dadkiisa soo dhaweyn lahaa intuu dadkiisa maxaan ku urursan lahaa isagi dilaaye isagi inta hub loogu dhiiba la yiri dil hadduu xishoonayo ama damiir leeyahay ama dhiig leeyahay sidaa ma uu sameeyeen marka ninkaanu ma xishoodo alla kama baqo oo dhiig islaam wuxuu leeyahay waxba yahow koob shaah cabaayu leeyahay waa ninkii aan daawaday isaga oo mayd cagta ku haya intuu dilay cagta ku haya yaa u baneeyay laa xawla walaa quwata ilaa billah wiilasha yaryar haddii ay maxaan ku idhaahdaa falal xun sameeyaan waxaa la sameeyaa si kale oo waxaa jirta wax looga qaban karo oo ah in loo nasteexeeyo loo dhimriyo la waaniyo advice la siiyo maxaan ku idhaahdaa hadday daroogo cunaan meel lagu xiro addicted hadday ku noqdaan daroogada meel baa lagu xiri lahaa halkaas bay maanta dhan qaylin lahaayeen dhowr bari markay ku xirnaadaan way ka bixi lahayd daroogada haddii aanay awoodin in dhiigoo dhan laga bedelo waxaa la samayn lahaa meel baa lagu xiri lahaa meeshaasay ku xirnaan lahayn xabisoo kale meeshaasaa lagu hayn lahaa lagu ilaalin lahaa ilaa ay daroogada ka baxayso meeshaa lagu hayn lahaa maanta dhan ha isdilo ha isgaraaco darbiyada ha isku garaaco ha gariiro ha isku kaadsho sida kuwa dibadaha jooga aanu ku aragnay markay daroogada addicted ku noqdaan ee la xiro sidaasay noqdaan laakiin gaaladu waa u soo iibiyaan markaasay ku duraan ama siiyaan laakiin meelo waxaa jira dadkoodu ay geystaan oo looga ilaaliyo waa la xirxiraa markuu ay qabato ayaa la xirxiraa si uusan darbiyada isugu garaacin uusan naftiisa wax u geysan kadib ilaa baryo markii uu sidaa meesha ugu xirnaado oo qolka lagu xiro
oo maxaan ku yidhahdaa meel yar cuntada looga tuuro ayuu waxaa ka baxaaya daroogadii. marka sidaasoo kale waa la samayn karaa ilmihii hadday noqdaan ilmo darooga qaato oo wax dilaayo oo addictig ah. hadday yihiin ilmo tuuga ah oo laakiin aan balwad isticmaalin, ayagana edabtooda kale waa la yaqaanaa, waa la xiraa, waa laga waaniyaa. waxaa weye diintaa la baraa, qur-aankaa la baraa. xabsiyada waxaa fiican in loogu geeyo culummo u maxaadareysa. xabsiga qur-aanka in lagu baraa la rabaa oo culummo qur-aanka u barta loo geeyo oo ajar ka raadsanaysa. dadkaas xiran ee maxaabiista ah ajar ka raadsanaysaa loo geeyaa, u muxaadaraynaysaa loo geeyaa. marka waa la samayn karaa, way hagaagi karaan. haddaanay wada hagaagina qayb baa laga soo reeban karaa oo lagala soo hari karaa oo hagaagi karta. laakiin naf nool oo adoo kale ah yaa baa khalad gashay, waa dilayaa. maxaa u dilaysaa? yaa ku yiri dil? maxaa u dilaysaa? waygee u dilay? sababtee u dilaysaa? qofkan xataa hadduu qof dilay waa inuu dowlad waa inay dishaa. dowlad waa inay dishaa. dowladdana hadday dilayso ma aha in dariiqyada ilmaha yaryar iyo dadka yaryar iyo dhalinyarada iyo inta kaleo dhan oo arkaysa in la dilo ma aha. naaga uur leh, cid kasta oo waddada maraysa, qof iska calool jilicsan, dadka sig bay ka dhigayaanba kenyaanka. haddayba maxamed rashiid dhahayaan waddada ku dil, ha ku quustaan bay ka wadaan dadkaas kale marka la dilaayo. maxay tahay waxaas? intee lagu arkay? dowlad miyaa waxaas? waxaas dowlad ma aha, sharcina ma aha waxaas. waxaa weeye qofka gaaladan xataa way dilaan qaarkood. weliba United States America waxaa jiro gobollo dadka lagu dilo, laakiin yaa dila? dowladdaa disha. sidee loo dilaa? qaar dawaa lagu duraa, halkaasi ku dhintaan. qaar korontaa lagu xiraa, waxaa lagu jiifiyaa maxaa la dhahaa sariir, korontaa lagula xiraa. marka ma aha xabad inta la qaato dadka dhexdiisna waa lagu siiyo oo ilmaha iyo naagaha uurka leh iyo dadka caloosha jilicsan iyo waayeelka iyo waxa inay arkaan looma baahna. qofka la dilaayana waa in sharci loo soo maraa. sharci waa in loo soo maraa, sharci islaam iyo sharci gaalo ka doonaba ha ahaadee. marka waxaa weeye ninkan waxaas caadaystay inuu dadkaas dilo. I don't think so inuu sharmaboy isku doonanayo uu aadayo Kenya, because Kenya ninkaasaa fadhiya. ninkaas ayaa fadhiya. wejigiisa markaan arkayna iyo indhihiisa waaba nin isaga dhanbaba laga cabsanayaba. so ugly. oh my goodness. waxaa kaaga daran xaasnimada iyo indhaha iyo sida waxa ka muuqda evil camala ka muuqata runtii. marka sharmaboyow raqdaada ha fogeyn baan ku leeyahay. raqdaada ha isku fogeyn. bartaada bar alla ah iimaanso oo iska fadhi oo halkaagaas maaragta. waxaan arkay meelo qurux badan maasha allah, biyo dhagaxsaa biyo uga dul hoorayo oo qurux badan. aad joogtid mar aad buur fuushan tahay. wow, like California ayaa buuraheedii ayaanba moodayba. maasha allah tabaaraka allah, so beautiful. ya Puntland meelo qurux badan bayba leedahay, aad u qurux badanba. ya amazing. marka halkaagaas iska joog. wiilkaas walaalka ah maxaa la dhahaa iyo xaaskiisana halkiinaa jooga. maxaa idin luray? ya iska jooga halkiinaas, nabadiina u jooga. waxaa weeye meesha ha isku tegina, meeshaas balaayaa gashay.
meeshas meel la isku halayn karo ma aha, meel sharci fiican ka jiro ma aha, waa meel kenyaankii baangad wato oo dadka dafaayo, waa meel maxaan ku dhaha hadda ka hor waxaan maqlay gabar xataa gaari la marsiiyey oo ogaan loo marsiiyey oo nin kenyaana uu marsiiyey. marka waxaa meesha waaba meel waalanba, meesha waaba meel waalatayba. marka iska ilaaliya Soomaaliya, adinkuna is ilaaliya, dhalinyarado is ilaasha, waqti xun ha soconina, gabdhaho is ilaaliya, qof kastaba ha belief garaynina, qofna ha aaminina, maal dhahaa qofna ha aaminina qofna ha aaminina, iska ilaaliya. waxaa weeye nafta wax ka muhiimsan ma laha, naftaada meel xun ha dhigin, naftaada qiimee, naftaada ka taxadar, naftaada wax kaaga fiican ma jirto, nafta waa qaali, hadday baxdo you are nothing, waxaa tahay male, aakhiro aa badinaysaa, xabaalaha badinay, waxaa qaban kartidna male, waxaa bedeli kartidna male, waa kuu dhamaatay. marka intay nafta kugu jirto naftaadaas ilaalso, yaa timekaaga ka hor ha dhimanin, inkastoo qofna tiisa dhaafayn, laakiin haddana waxaa dhici karta qofka timekiisa ka hor in la dilo, way dhici kartaa, halashaan si xun u dhinto aan ka wadaa. laakiin wax walba qadar lah, waxaa weye wuxuu ilaahay qadaray, waxaan alla qadarin ma dhacaan. dabcan anaga muslin aan nahay, qadartaan aaminsannahay, but meel xun ha ku dhimanin, meel khaldan ha ku dhimanin, is ilaali, nafta ilaali, ilaahay xataa ilaali buu ku leeyahay naftaada. marka be careful, waxaa samaynaysid ka taxadar, hooyadaa calool xumaha badin, sharma boyo halkaasay isku aadin, halkaa ma aragtaa isku aadin, dhul kale haddaa aadaysa ma ogi. waan idin salaamayaa Soomaali, dhalinyaradooy, waxaa weeye ka baxa waxaa ku jirtaan, ka baxa waxaa ku jirtaan, ka baxa in laydin adeegsado, ka baxa in laydinku shaqaysto, ka baxa in maxaan ku idhaha laydin isticmaalo, hadhowna la idin tuuro, ka baxa inaad oday weyn oo calool buur ah u shaqaysaan, ka baxa, ka baxa, maskaxdiina ha korto. waan salaamaya, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.